soo dhawaada dhagaha Imaaliya dhalinyarada Soomaaliyeed idinkoo mahadsan waa barnaamijkeeni aan ugu magac daray taxanaha tabliiqeynta wacyigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed qaybtiisa labaad qaybtii koowaad horey baad u daawateen waxaan idinla soo wadaagay anigoo jooga wadanka Tansaaniya iminkana waxaan idinkala soo wadaagayaa qaybta labaad wadanka Kenya horta awalan waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal barnaamijkan waxaan inoo ku dooray ama idinla jeclaaday inaan idinla wadaago nolosha dhabta ee dhalinyarada East Africa ay ku nool yihiin iyo sida ula falgalaan iyo sida ugu qanacsan yihiin awalan horta dhalinyarada East Africa waxay aaminsan yihiin dalka iyagu inay leeyihiin hantidoodii yahay iyaguna xoogii dalka yihiin tusaalooyinka kooban baan soo qaadanayaa marka haddaan kama dhammaan kara haddaan hoos u guda galo waxaad arkaysaa gabar master degree ee subaxdii guri u shaqo tagayso reer u shaqeynayso $100 wax ka hooseeya ku shaqeynaysa haddaad su-aasho tiraahdo heblay qofka kula midka America jooga $10,000 iyo wax ka badan buu ku shaqeeyaa jawaabta horeysa ay bixinaysaa waxay kule America mali anu kanaan leeyahay wixii aan ka helana waa ku faraxsan sidoo kale wiil baad arkaysaa ama car wash meesha baabuurta lagu dhaqo ama makhaayad shaah dhiibhaya ama dukaanka guuraha dhabarka wax ku sido maanta dhow wareegaya maqasyo iyo wax la mid ah gadgadahaya iyo sokiska kabaha cagta sigisaanta baad u taqaanin wareejinaya maanta dhan gadahaya waa nin master degree markaad tiraahdo qofka kula midka Australia iyo Europe lacag badan buu ka shaqeeyaa maxaa wuxuu ku leeyahay anigu malihi Australia kan baan leeyahay waana ku qanacsan annaga dhalinyarada noocaas oo kaleeta ee master degree-ga waxaa laga yaabaa gabar iyo hooyo aabaheed ama hooyadeed ay ku soo koriyeen maxaa yiraahdaa dhuxul yar oo suuqa lagu gado caano ama kawaan ama bibi tayro shaaha oo ilaa 25 sano waxbarashadoodii iyo noloshoodiiba ay la soo daala dhacayeen waalidkaas maalinta dambe ay jaamacadda dhameeyaan haddii hooyadu tiraahdo heblay gabadheeda heblay hooyo markay tiraahdo hooyo reer abti baan soo salaamaya ama qaraabadii reer ama soo salaamaya maanta meherada igu jawaabta horeysa ay bixinaysaa waxa weeye hooyo anu gabar jaamici aan caana iibinaya ama dhuxul miisa haya la igu sawiri maayo wiilku sidoo kale markuu aabii yiraahdo aabe shirki beesha la iga yar meherada igu soo xoranay aabaan u jaamici aan shaah aan wareejinaya la igu sawiri maayo sidoo kale mid tuulo jooga waxaad arkaysaa magaciisa aan qori karin oo Soomaali ah oo markii nin fundiga u yeero yaa warkaala dhagaxaya dhoobada soo qaad 7 saacadood baa shaqeynaysa $15 baa leedahay joornaatada casarkii waxa weeye baad jeebka soo gashanaysa jawaabta horeysa uu bixinaya waxa weeye fundiyadii malaysa markaad la sii doofaarka is wasakhe hada magaciisa ma qori karo qalbigana dadka waxay ku hayaan inay tahriibaan waxa ay soo baxday dadka inay tahriibeen ilaahay badihii iyo magafe ka badbaadiyay wadan aysan lahayn migrationkiisa markay tageen su-aasha horeysa oo la weydiinaya waxa weeye xagee ka timi Soomaaliya maxaa ka soo ceeshay qarax markay maqlaan gaaladu waa argagax baa ku dhacay waayo wadan qarax ka dhacay ka yimaadeen dadka qarxinaya waa Soomaali kuwaana waa Soomaali waana dhalinyaro awalan waa la kala soocaya gabdhaha xagga la taagaya wiilashana xagga la taagaya gabdhaha waxa loo dirayaa rag baara wiilashana waxa loo dirayaa gabdha baara marka adoo shalay sheekh hebel ahaa ama professor hebel ahaa markii oo maxaa yiraahdaa markii gabar ajnabi ka ay ku baarto ee saaq maartay ku qabato ee meelaha mamnuuca ay taabato sidoo kale gabadhii adoo gabar sunni aha xijaabna macallin aha 14% maaragtay markii nin ajnabi ku baaro way asagu waxdana kaamale waajib buu gudanayaa dalkiisu u dhaartay qarax buu ka baaray waxa ku shidmaysa heesti maxamed moogi way awooda isaga celisid malihid luuqada kula hadashay ma taqaanid waxa way afkiis qof wadamada caalamka waxa looga hadlaa qof walba dal walba ciidamada waxa lagu tababara afka hooyo inay ku hadlaan ajnabi kula hadlaan waa ka faanaan luuqadaha kale anaga baa luuqadaha kale ingiriiska iyo carabiga ku cararna moogta marka luuqadiisiibu dalka gaarka oo ahayd buu kula hadlaya ma taqaanid marka luuqad ingiriis baad ku hadlaysaa waad marka taad ku jawaabiyo luuqadiisu kula aadaya waa ku xumaynaya marka heesti maxamed mooga ku shidmaysa maxaa del cad geel halaabo dib jiraye cunay dugaago kiilaha daydaya markaasi ku shidmaysa wallahi wax walba dib u xasuusanaysa maskaxdaadu rikoor noqonaysa marka walaalayaal waxaan idin ka codsanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dalkeena aan ka shaqeysano una shaqeysano aan isku borogaraamina dalka ina anagu leenahay dal shisheeye waa dareen ku joog waxaan idin ka codsanayaa hadduu fiidiyowga idin soo gaaro sii share gareeya si uu gaaro dhalinyaro kale oo badan ee Soomaaliyeed aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sidaad ii daawateen ama ii dhageysateen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh